munaasabadan oo ujeedkeedu ah furitaanka sanad dugsiyeedka 2014 iyo 2015 ayaa waxaa lagu qabtay xarunta dugsiga hoose iyo dhexe ee Anwar Muslim United School. mu'asasada Anwar Muslim United School oo ah meel wax lagu baro ardayda agoonta ah iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska danta yar ayaa waxaa sanadkan jira 70 arday oo ka gudbaysa fasalada dugsiyada hoose waxaana ay u gudbi doonaan fasalada dugsiyada dhexe. holka ay ka dhaceysay munaasabada furitaanka sanad dugsiyeedka 2014 iyo 2015 ayaa waxa halkaasi ardayda iskuulkaasi dhigatay ku soo bandhigeen mujaajilo ka turjumaysa qiimaha ay waxbarashadu u leedahay dhalaanka Soomaaliyeed iyadoo sidoo kale riwaayadani lagu muujinayay qaabka ay mu'asasada Anwar Muslim United School ay u heelan tahay wanaajinta mustaqbalka carruurta Soomaaliyeed. Aku gimana ya? Aku nggak turun, macam je, bedo. Ini cara ada kawan, ini sudah masyarakat kami ini kan, ayah kan kawan, ini ada bahasa. labadan bil walaa bilaad waxa la sheegay iskuulkiisa leeyahay oo jaamacada wax lagu baranayo inaad gaartaan kaysto waa agoonta miskiinta. عليكم السلام. halkaan ku suganaa iskuul maahan. نعم. نعم هلا. ها. هلا كوفر معنا كوجي. كنت أنا راح يبتدي. ألو برا. أنا برا أنا كمان تبرني. أفر ما دعم. أفر ما دعم بنت إيدي أفر ما تشفع معها. Dr. Xasan Xuseen Roble oo ah maamulaha Anwar Muslim United School iyo Ciisadiin Maxamed Cismaan oo labadoodu ka hadlay holkay munaasabadu ka socotay ayaa ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha kala duwan ee Soomaaliyeed ee ku nool wadamada caalamka inay ka qayb qaataan wax u qabadka carruurta Soomaaliyeed. marka waxaan codsanaynaa qoladii kale waxaan lagu taakulayn kartaa ardaydaas wax siin kartaan inay soo siiyaan caalamka oo meel kasta ay joogaan anagana dadaal waxaan ballan qaadaynaa inaan wax barno ardaydaas oo ku dadaalno sidii ilaahay raalli uga yahay in aan wax u barno diinta islaamkana aan barno ugu horeyso juhdi badan isleen waxaan halkan uga mahadcelinayaa macallimiinta madrasadan maamulkeeda Xasan iyo Seraar iyo group macallimiinta Albaashi dhammaan oo dadaal badan muujiyay oo ku dadaalay inuu madrasadan cagaheeda ku istaagto hadal badan aan ma badbaado waxaan ardayda dhamaanteen waxaan leenahay jasaakumullahu khayr. As I was witness the opening ceremony today is different. The opening ceremony we had small students. As I'm seeing today, there's a lot of students. So, on behalf of the teachers and management, they all thankful for those who support this school. And I'm witnessing today the development has been made. This student is very hard. It's very hard. So I'm asking again for those who are supporting to continue. And I'm also asking whoever can support this school to support. So we are asking Allah to give reward for everybody who contribute this school.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan ka soo qayb galay sanadkiisa cusub furitaanka marka waxaan hadda ii muuqato isbedel weyn ardada hadda aan arkayno way ka yareed furitaankii oo aad ay u badteen ardada marka waxaa jirto baahiyo badan oo dhinacyo badan ah marka dhinaca oo aqabka ay aad uga baahan yihiin marka waxaan weydiin lahaa ummadii furitaankeeda ansixisay dugsigan inay taageeraan mar labaad oo ay ka taageeraan dhinac walbo maxaa yeelay ardadani waa arday u baahan inay yani la taageero waa arday yani aad iyo aad ugu baahan inay Muslim United School ayaa la aasaasay sanadii 2012 waxaana hadda dhigta arday badan oo qaarkood ka soo jeeda qoysaska danta yar kuwaas oo eheladoodu aan awoodin in caruurtooda ay geeyaan iskuulaadka ku yaala magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu barto lacago أويس محمود جلعو رويال تي في مقدشو.